السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال يا مروين يا حلمانada sharafta leh iskiin bari maayo oo in badan baan u idin soo hortaagnaa marka ku mashquuli maayo taariikh nololeed iyo wixii aan soo maray ku mashquuli maayo wixii aan soo qabtay shantii sano ee madaxweynaha ahaa waxaan se rabaa inaan marka hore ka hadlo meesha hadda aan taaganahay iyo jihada aan u soconno iyo isbeddelka loo baahan yahay mudanayaal iyo marweyn sidaa la socotaan maanta doorashada Puntland waxaa dul taagan arrimo badan oo loo baahan yahay inaan wax badan iska weydiino oo si taxadar leh looga fara buuxsado mudanayaal hogaaminta Puntland ee waqtigan waa ka muhiimsan tahay doorashooyinkii hore ee Puntland waayo Soomaaliya iyo Puntland ba waxay joogaan kala isgoys iyo marxalado kala guur ah Soomaaliya laftigeeda ku jirta marxalad kala guur ah ana waxaan ku jirnaa marxalad kala guur ah oo maxaa ka mid ah Soomaaliya waxaa ka socda hawlo aad iyo aad loo saameynaya si togan iyo si tabanba oo ay ka mid yihiin deen cafintu oo ka mid yahay hubka cunaqabateynta hubka oo la qaaday oo ay ka mid tahay la dagaalanka al-shabaab oo ay suurtagal tahay in si dhow looga guulaysto mudanayaal iyo marwooyin Puntland waxay ahaan jirtay hoggaanka maamul goboleedyada Soomaaliya waxayna qayb ka weyn ka ahayd dhammaan aragtiyada lagu maamulo Soomaaliya nasiib darro maanta waxba laga weydiiyo arrimaha Soomaaliya ee masiiriga ah ee taabanaya nolosha asaasiga ah ee shacabka Puntland waxaan inta u sheegayaa waxa weeye in meesha aan joogno aan ogaano ka bacdina meesha aan aadi karo u soconno aanu abaarno mudanayaal iyo marwooyin waxaa khatar galay oo la socotaan hanaankii doorashooyinka Puntland ee shantii sano mar la dhici jiray waxaa la dhibaateeyay sharcigii Puntland iyo dastuurkii waxaan la xurmo tiray dhammaan qiyamkii ummadan ay lahayd iyo dhaqankeeda la ixtiraami jiray mudanayaal si looga badbaado dhibaatooyinka aan kor ku soo sheegay ee shantii sano la soo dhaafay waxaan maanta u baahanahay inaan ka shaqeyno helidda maamul xasiloon iyo hoggaan ka duwan mid ka sababay hanjabka shacabka Puntland mudanayaal ma sugayno natiijo ka duwan shantii sano la soo dhaafay haddii weli aan rajo ka qabno madaxdii sababtay marxaladaha aan kor ku soo sheegay mudanayaal iyo marwooyin mudanayaasha baarlamaanka ee Puntland waxaa si ixtiraam loogu sheegayaa in maanta laga doonayo doorasho sababta 5 sano ee deganaansho siyaasadeed Puntland ma qaadi karto qalalaaso iyo jahawareer siyaasadeed ee hor leh waxaan la idinka rabaa inaad abuurtaan shacbiga Puntland rajo iyo mustaqbal degan waxyaabaha marka aan isleeyahay waa loo baahan yahay kow waxa weeye xasilooni siyaasadeed waxaan u baahanahay dalkan shacab iyo dawlad isu niyadsan shacab iyo dawlad wada shaqaynaya shacab iyo dawlad midaysan oo meel u wada jeeda oo xasiloon labo waxaa loo baahan yahay cadaalad iyo dawlad u eg dadkeeda in badan oo shacabka reer Puntland waxay ka maqan yihiin golayaasha dawladda oo ka mid yahay baarlamaanka iyo xukuumaddu arintaasi waxay keenaysaa dildilaac ummadda dhexdeeda saas daraadeed waxaan u baahanahay in shacabka dawladda iyo dadkeedu ay soo egyihiin waxa kaloo muhiim ah si horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha runtii Puntland meel fiican bay joogtaa horumar badanna waa la soo sameeyay oo ay xukuumadihii kala duwanaa ay mar walbaaba
midba meesha ay joogto ka sii horumarinaysay laakiin haddana wali wax badan ayaa noo dhiman sababtoo ah kaabayaasha dhaqaaluhu waxay muhiim u yihiin maalgashiga dabadeed ee ah midka publica iyo midka private-kaaba si marka horumarkaas iyo maalgashaas aan u helno kaabayaashana dhaqaaluhu waa in aanu sii horumarinaa waxaan kaloo u baahannahay horumarka dowladnimo wuxuu ku jiraa waxaa la yidhahdaa social serviceska amase ee arrimaha bulshada oo aasaasiga oo ay ka mid tahay waxbarashada caafimaadka iyo maalan biyuhu oo kale in badan waa laga shaqeeyey laakiin haddana waxaan u baahannahay in la horumariyo sababtoo ah dadkiisu caafimaad qabaan oo waxbarasho leeyihiin oo aqoon leeyihiin ayaa keeni kara horumar iyo dhaqaale taam ah waxaa kaloo loo baahan yahay in institutionka dawliga ama se haykalka dowladnimo ee aanu leenahay uu yahay mid dhisan waxaan u baahannahay haykal dowladnimo oo qaybaheeda kala duwan ee dowladnimadu baarlamaanka xukuumadda ama se fulinta iyo maxkamaduhu ay kala madax bannaan yihiin sida saaxiibada iga horreeyay ay sheegayeen waxaa loo baahan yahay baarlamaanow xukuumadda idinkaa dhala idinka ayaa laga rabaa inaad korjoogtaysaan laakiin uma baahni sida aan soo aragnay baarlamaan iyo xukuumad isku mid ah mas-uuliyad baa idin saaran ah in aad u gudataan sida ay tahay dowladdana ku ilaalisaan kuna korjoogtaysaan shaqooyinka loo igmaday ugu dambeyn waxaan rabaa inaan laba kalmood ka idhaahdo arrimaha SSC runtii SSC iyo Puntland waa laba maamul oo walaalo ah oo daris ah laakiin kala guridooda iyo kala guurkoodu wuxuu u baahan yahay waqti in la siiyo taa markaan ka soo tagno runtii Puntland waa ay dhisan tahay waxaana u baahan tahay waxyaabo yaryar oo aan is leeyahay in laga ilaaliyo daacish iyo shabaab laakiin meesha u baahan dhismaha iyo difaaca iyo juhdi badan in la geliyo waxaa weeye maamulka hadda curtay ee aan dariska nahay ee walaalaheena wuxuuna hadda food saarayaa khatara aad u tiro badan sababtoo ah heshiiska u dambeeyay ee la sheegayo ee dhex maray Somaliland iyo Ethiopia victimka u horeeya ama cidda u horeysa ee dhibtu ka soo gaaraysaa waa SSC marka mas'uuliyad ayaa laga wasaaran dhamaanteen in aanu difaacno siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba inta ay lugahooda isku taagayaan mudanayaal iyo marwooyin iyo mudanayaasha baarlamaanka waxaa si qadarin ugu sheegayaa in maanta masiirka umadeed ee 5 sano ee soo socota ay gacantooda ku jirto ee Bakasokow lagana doonayo dal xasiloon dad wada jira iyo dowladnimo shaqaysa mudanayaal iyo marwooyin maanta waxa idin hor yaal go'aan masiiri ah oo haddii aan aad looga fakarin oo si taxadar leh iyo mas'uuliyadi ay ku dheehan tahay saameyn toos ah ku yeelan doona bulshada ku dhaqan Puntland iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedba aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idin rajeynayaa guul iyo horumar iyo inaad doorataan qofka aad u aragtaan in uu ugu mudan yahay maanta xildhibaan murashaxiinta hortaaga aad waa mahadsantihiin